ku soo dhowaada barnaamijkeenna gungaar oo aan ku dul istaagi doonno macallinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka banaadir kuwaasoo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna lahayo xogtooda oo lagu raadjoogo magacyadiisa afgarashada ay ka mid daadir xaaji ilka xudayfa iyo cadaawe waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa al-shabaab ee gobolka banaadir waxa madaxa dilalka qorsheysan ee gobolka banaadir horta asalkii xudayfa aan ku ah group fara badan oo aan la soo markay badbedelayna magacadan asmada group walba lagu soo bedel magac cusub waay cadaawa la baxay rakacasan la baxay maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhalinyaradii hore aan ku soo qaadanay barnaamijyadeena gungaar waa macallin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda mana ahan wiil yar oo aan waxbaran oo la marin habaabiyey haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka maxamed xaaji ilka xase ee la xiriirta dhagridda bal aan marka hore eegno isagu waa kuma lafahantiisa ayaa noo sharaxaya maxamed xaaji heerarkiisa waxbarasho sidii kala dugsigii hore markaas ka soo baxay markaas oo idin kaga sheegay markaas oo culumta diinta aan ku soo baxay oo taxadka ay lahaayeen xaq diin ahaan markii la kutubada soo akhristay oo dhowr ay u badan yihiin reer saalixiinka iyo bilowul maraamka iyo tajriis waxaan kutubada tajwiidka iyo kutubada kala jihaadiga wax badan soo akhriyay سواء مش اللي يقدر تروح حافظ عوالو ميلك مريض من حافظ القرآن حق دين تساسو مركا ديك سوا صدق وحان صدق مي سنة كالوكم يسديد السوق سديد صديق إسلا أكاديميك يك وحان صدق بي بقادة مركا كبلاو ديك سوا سارة حان أقول 11 2011 لابدكم يسديد إيو كوي توانكا إلا إلا بيتوانكا دحيسا إن أخوتي الجامعة سoo galay la kala 10 ilaa 16 kan dhiganay shahaadada BA aan qaatay kadib waxaan galay macad English lagu barto magaalada ku cusba frontier la dhaho aan ka qaatay shahaadada diploma English assistant aan ay qaateen markii aan ka soo assistant isla ay waxaan ka noqday macallin معنا إنجليش أكاديميك إنجليش عندنا مركا دولة كلا هذا جامعة مقدشة بلاوي ماستر environmental study halkan waa maxadka frontier oo lagu barto luqadda ingiriiska waxaana uu ka ahaa macallin ingiriis maxamed xaaji ilka xase isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus of preparation one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in general East Africa we have only few countries that operates and prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college started preparing the method of macallinka dilaaga noqday maxamed xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisareed al-shabaab ee muqdisho ka geysata falal argagixisanimo waxaana sida ku xasyaxda booliska gobolka banaadir madax u ahaa qaybta dilalka qorsheysan ee shabakadan maxamed xaaji iyadoo uu ku-xigeen u ahaa sharmaaka cumar axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka banaadir ayna ku raad joogaan axmed faarax iidle oo magacyadiisa afgarashada ay yihiin shuuriye madoobe nuunow iyo ramadaan cabdiraxiin mursal oo la baxay saalax waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorshaysan qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda ilka xase waxaana ku-xigeen u ahaa dhinacaasi saalim siciid oo ay gacanyaryaal u ahaayeen haashin carab faadimo korneylo maryan oo ah xaaska saalim cabdiraxmaan sheeba iyo cabdinaasir axmed oo ah maqanayaal ay boolisku ku raad joogaan maxamed xaaji ilka xase waxa uu ka mid yahay dhalinyaro dhowr ah oo al-shabaab ah oo aan horay u soo waraysay kuwaasoo fikirka takfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa qur-aanka taasoo ah halka uu kala jaaday al-shabaab fikirkan wuxuu ugu shaani fikir oo anigoo weyn ah
waa ka yaraa macna marka gacan tusaalahan dugsiga hoose dhexe markaan dhiganahay dugsiga quraanka dhexe dugsiga quraanka aan dhiganahay wuxuu ahaa dugsi itixaad ay leeyihiin xiligaas dugsiga aqwaanka hal jir gobolka oo dhan waa looga imaan jiray marka la markaas ahaan xiligaas suufiya ku badneed magaalka iyo gobolka laakiin magaaladaasi waxa loo imaan jiray dugsiga la aqwaanka oo caan waa dadka bul mar dugsiga aqwaanka dadadii ameel aan hada ugu sheegi karo marka dugsiga waxa macallimiin oo ahaa banaman oo xiligaas oo itixaad ka dagaalam jiray oo nin la dhaho macallin Suleymaan nin la dhigi jiray oo howlgaladii calal ka dhici jiray Itoobiya ku baxay maxamed xaaji ilka xasan shaqadiisu ka soo bilaabay magaalo xeebeedka marka oo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saameyn ku lahayd kooxda al-shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xiligaas dugsiga waxaa noogu imaan jiray waa xili hore sheekh Fuad waa nin iska yaraa xiligaas xoogaa da'ahana nin weyn u ogyahay iyo aadan xaashi iyo nin la dhaho maxaa la jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubair meesha ugu waajir kullu ma ka jirin xiligaas laakiin ilka xase waxa uu marka uga shaqayn jiray hab jaajuusnimo oo isaga koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka ururiyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko dawladdu marka meesha oo soo tashatay markii isoo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dawladda imaaday daaqil oo ku soo baxayna ka qaarijiga ana taasoo qaarij ayaga howlgala ilaa dadka ayaa yaqaan oo intaan ku soo koray muqt ki isbedelaayo ki jaasus ah askarti dad cusub dilo keeno yaani dib weyn qanay in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana sidii waxa la jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan wiilka xase ka mid ahaa ay Marko ka qabtaan waxa ka mid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajow kaasoo ka shaqeynaya Xaajow Bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xase in dilkaasi uu geysay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aan shakhsiyan aqaanu ahaa yani nin fiican oo ahaa dawladda u shaqeynayeen waxba muusan ahayn meesha station road ku joogay footadaas uu iska joogay family ahaana yani waa dad aad loo yaqaan footada iyo sawirada dadkaas xiligaas gobolka dhanba waa laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga ay yaqaan banaankan joogay oo meesha isaga station roadtiisa munishibi meel la ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyin wax lagu qaban jiray anoo xagga taagan aan waxaan arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dhahay doono amesh taaganay Asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraan nimanka wada carreen gabigooda wallahi fulay waay shaabti iyo wixii iyo kan budbooda wax muusan hubsan ninka ku bilaabay abaar marka xabada anaga soo wada orad meesha ka imaanay ninkii jiifa aragnay ninkan abskoo la xariisana bas ninkan soo wadnay waxa dhacay saan u dhahay ninka u dhahay telefoonkiisa ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa anoo meesha taagan u dhahay nimanka soo galeen wuxuu gudbinay Asad markaas uu noolaa ana waa arkay ana paralyze uu noolaa yani meed ahaan uu soo tagana kala markaas uu noolaa Asad marka dadka ma sukaan yaqaanaan qaarkood si kala saaxiib waa una footada iyo wixii marka ma ku darsamin baana hadhow siisan fariiso galin banaankan ka istaagay maxamed xaaji ilka xase waxa ka mid ah waxyaabaha xajiibka leh ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa Generaal Ismaaciil oo xaruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulay sida xaruurtiisa oo kale آخركينا وحاو مركي ومركا كدلو وهي وجنرال إسماعيل أحمد عثمان مكيالي كدلو سيديد يلواتنكي بشي تمنا سندكي لبدي يكون يلحي طبانكا دقمدا وابريا مقالة مقدشو نينو وحال جري إسماعيل برشان اللحا أها وعن وايس شنامدا عن كامركا كتار شيخ إسماعيل مركيالو دمغش نينك اللهاوا جنون لكن سياد بروها markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal
oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda uu soo hubeeyay dib loo sii jirnay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada Ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligii magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeeraas ka dhaha marka mugta ilmiisna saaxiibana ninkii aameesh dadka qabtay ku mid ah marka inta qadir sidii isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxa waaye dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan ka mid ah isaga dhowr mar oo aan shakhsiyadii iga badbaaday oo aan gurigiis bam ku tuuray ciyaalkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaasna way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhameeyay dar hadda Muqdisho ku 2 sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jecel Liberian ku helay Ismaaciil asoo Interpol shaqeynaa booliska mud 5 sano 6 sano ka soo wareegtay ninkii dadkii meesha waxa soo baaba inta la isleeyahay moogta ninkii intuu imaaday isagoo sarkaal la sii dalacsiyay oo yani Interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahayn anaga marka si hadii loo dhaano xoogaa waxa nagu jira adeernimo iyo wixii qaraabo maniin laakiin adeer iska dheena laakiin haddana hooshii ana baris adeer iyo waxa inaan ana ugu dambeyn hada ninkii saaxiibkayga Hashimi afar sameeynankii iyo ani shuri dilka Generaal Ismaaciil kuma uusan ahayn Maxamed Xaaji kaligiis waxa ka qayb galay Haashim oo kamid ahaa shabakada Ilka Case waa kan Haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa beri isgooska shaqaalaha uu fadhiyay meesha laga soo doorahay haddan ciidana markaasna oo seminaarka maadal sheegay Talyaani ma sarkaal waxa marka xaafadu soo galay xaafadiyaan kala soo dawgalnay markii taasan sidoo kale Maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay Xaaji Baano oo kamid ah waxgaradka magaalada Marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isagii dhagar qabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka Eebe يعني ninkan isaga ah oo Baano Xaaji Baano waa nin orto dhoweyda dhan lagu yaqaan markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aad ka aha markuu masaajidka uu soo baxay masaajid yar Ar-Rahma Allah oo ku dhaxyaaris Ar-Rahmadan weyn ma aha oo wajar ku dhaxyar koo kale waxa jir duruqbada ku dhaxyalo shurufada yar oo duruqbada ay ku tugtaan kii uu soo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa la soo confirm gareeyay ninkaas ala cunaali markii dambe waxay kooxda Al-Shabaab u soo bedeleen Maxamed Xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho oo uu sheegay in waqtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan oo ay ku xigeenno ahaayeen Cabdi Majiid iyo Cabdi Muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sanadkii 2012 Maxamed Xaaji markii ugu horeysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen Galadile iyo Mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay Muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd Felis Macow oo ah xukunsana ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho ana shakhsiyadan garad ninkan aan ku soo gaaray wax yar ana ku soo gaaray khilaafkii jugti wixii dhacday waliyaha kii kadib wixii dhan waa la bedelay lahay galad aan loo keenay oo Galadile galada waxna lahay ila shaqeysta eragin hadda asaasta magaalada waa ka saayay wax ka qabta sida dadka loo asaasay oo wuxuu dhahay garad niman jabhada oo isku jir jirteen xilliga laakiin aad ku yaqaan aad aqoonina jiro oo guur hadda hoostagaan waa laba nin oo active ah ku keenay yiri isla shaqeysta saddexdiin labadii qof ee waqtigaasi la shaqeynayay Maxamed Xaaji hadda galad waxa uu ka baxay Al-Shabaab halka Mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka Banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa Maxamed Xaaji waxa uu ka bilaabay Muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uuna Muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay Muqdisho waxa ka mid ahaa Generaal Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uuna jananka ku dilay masjid ku yaala Waabari isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sabab la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhawaa aaga
جنرال كان ماشي soo fadhiisana maqribka cishaa wuxuu ku tukanaa marka maqribka ma la dili karo oo degmadu u dhow yahay degmadana ciyaalkan dadka joogo agaas isha madow waata marka waa cisho marka niyo dhowr mar isku daynay waxa la isku heshiiyay hadii ninka bubuk la maqlo degmadu u dhowdahay isgoosada day xiraan inta laga baxa ragina la lugayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuqa xeelada la lahaado oo lagu baxsada jiro oo la calada wadooyinka la xirxiro oo bajaajta la barbaaray dhalinyarada iyagoo waxooda wataan meesha la soo maray dilka jenaraal Quruurux waxa uu kamid ahaa dhagarii ugu xuslaa uu sameeyay Maxamed Xaaji Ilka Case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday laba koox oo bam gacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada Waabari iyo bar ciidan oo ka dhaweyd ameesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu teleefanada ka baaqay tuuray bam gacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shirc anaga waxaan dhahay shirc hoosh adan keenay taala soo qabsan la adan keenay taala mar muqdisho idinka dhex joogna waxaan wixii khub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh adan ka wada جنرالك مركا هوش أنا وصل شوتين يوادا مقدس أو كلي خان بدبد أنا سلمان وصل شوتي سلمان ترى هو يرنيه جنرال كرتا حل ملوج هذيك لو الملوج هذيك صدح الملوج هذا إلى لبوا وطع مركا استافكا لبوا واي حل نسقوه نقول بشغلي سقب صدا نقول بهلوك هذا مركا أنا حكون فكري دقمة أودو waxaan nahay markan iyo macquul ma degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah hatta albaabka isaga dhufta say barto intay difaac ku galan xabada ay tooraan isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyay degmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo bundadana gaaray meesha u yaalo jukka dhacday soo dhaqaajinayaan ayagana aan ku dhufana markii la isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo la soo diyaar garoobay saddex markii loo soo diyaar garow ugaaska caawab hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxalli jiray jananka hal staff wata bas sayidka isku tugtay markii cishaha oo laga bixi rabo waa u baaqina dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan ku dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyo saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaanba ila jug markii xabada la wada yeerna waqti ciidanka tuuray meeshina ku dhax qarsantaa la rabay kadib sidii jugtiya dhacday oo ku qaban ugaaska iskooldan soo siiyay Allah u naxariistay jenaraal Maxamuud Xaaji Cali oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada ayaa kamid ahaa dadkii uu dilay Maxamed Xaaji waxaana uu ku dilay degmada Boondheere xilli uu jananku hor fadhiyay gurigiisa waxa soo gudbiyay wiil mootola soo gudbiyay oo dhahay in janana meeshan joogo markaan tagay oo aan shaqada soo fiirsaday dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen Boondheere meesha ugu xarunta badan waa dawladda maxaa la jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxay toole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo adkaatay waxaan ninkan general ma booke maxaa ninkan banaag iska fadhiy horkan general ma aan dhahayniyo ku qaldamaysid hore ma ogide magaciisa sheegayna xataa shaqaas qaado ninka janam ma ninka sarkaal waa dhici kartaa ninka jan wala ku soo fadhiisanay hal wiil la fadhiisanay ma jiraan meesha wax ma baro cunin buuligeeda taasoo kalsoonidaas isku qabaa bas okay waay marka galab aan rabnay galab waan soo rigalweys subax guriga loo dhisaya subax ani iyo shoori iyo waxa imaanay iyo ugaas shaqada ilaan shaqa janna mamud ilmo yareer ma kaysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan ka dhiman karaan ragii waaweynaad in xaniyooda fuulaha markan meesha imaanay janankii isaga ah jananka waa fadhiya subax waa haddii ani iyo ugaasan xiranay shooriina waa u xiran tahay shoori nooha xag u taalo noohadan ka qaadan aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo siina deena xirtaan isgooska baxbada dhacamay waa la bixi karaan ku yiri oo jafeena deena la dhaafan oo tuureenaan bas go'aan ku qaadanay noohadan qaadanay haddaan aadnaba waxa arkoyaa guduhu galay dhagaxad xagga ag marnay guruhu galay ninka shooriga kor naga daawana maxaa dhahay ninka guriga oo gashan guriga wax ku jir ma naqaan oo kaadaan waxa soo baxay janankii oo janankiisa wata oo dharkii militariga wata ima aqaaniye wax digaha ugu toban iskoolo biljam fiican wata imid kale staff
وطا يعني غير وطا هاك وطا أصل صباح وراني ما كنت صباح إن أنا ونص على نك وين كسكيل علي بس كمان وطا بس إنه هذا الجلان أنا أقول أنفلين فك ده لو صار بهم ما تهاوني بمركانك أسفيرين وأصلافنا له يعني هوش أصلا كصوب بعد سيك دوني أنا ناخد من كان ماشي ونوفدين عادي هذا بس كله سوقاتي سجى خلص تهدي له دارك ودي بقول لك ما أنا كلابات ما أنا كلابات أصلا سدي صوبلانك فديه بوك أنسيني ما هذا اللابتوب صار اللابتوب كان صوت دفي وصار عرري كوفي عن كل قلم ربنا أولي قناة كوفي عن كل قلم وصار عرري xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa u khidmaynta shacabka ayay ku dileen waddo ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ka soo deganay gaari kama istabanay كان واسونا كلا بيكسارين إنك كلا إلى أنا بجناي إنك ما هذا قلنا صوت بس هذا قل إنك كلا إلى الله أنا فرنا صاحبه ومشغول عني إنك عدو وطابت ومشغول زي مكتب بس كعيس ما يعيش هذا ولا قاعد كرر كذا إنك كلا إنه مركب إنك إلى عليه واحد دلائي إنه إلى عليه أصلا كرر سوى كان بد كان هي حاجة قل أنا قلها أكل أنا قاعد أنا قلها هي إنك دار دمر مش صوت حكله أبنو هكذا بقى استاجي سمياد دش هذا عي كان كلا تقول هاي بقى قبتي صدق أنا قارك صدق صدق أنت صدقتي ومنطقي وفديستك عيو سكوت درس من سوى عبين مركب وقاعد عقد لمك وجدنا ولا مرة مكت تينا دوا الله أذكر الله عنك وإحنا ملوهين عن ملاء قوسين كدب وحمق لنا قدرنا كما قدونا نك ده يور هبرة ننا تلفون قد له نجي سنة أنا ومش اسكمر يندبك ورنك يستجع هنك كلا ولا صارنايا سألوا لا فمرك نك كلا ورنك كلا ما أخوزنا الله جد دي بنك فاهم تونا نك حتى إنه وحاها فلولا أنا أوغان وديك من نفط الكيس دي بنك أوغان دونا نك جاري لا صارنا إنه شقة وحكلها يعني حريلاني بحكمة ونفتر كشغينة أوغاني فاكتور لكن لما هو sidoo kale dilka taliyay saldhigga Wardhiigle ayuu wax ku ogaa in kastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda wax dishay wuxuuse ku doodayaa in kooxda wax dishay u dejiyeen xeelad ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha moota ku barbaray moota barbarad laga dhigay dabada talo mara hubkii uu soo dahay dib u imaan ay qaateen faktaan موتا أوس مش حكوا بربرة صالح وحكوا لي عن الموت مش لو بربرة عباري مش جوجا رجعت ما تكوت ولا معك سانسة عمران تلي مش جو دوالي إيش سان كسوهن ليه sometimes نحن أركيس خوفك أنا عنا حتى ما نقام maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii Aamina oo ahayd baare ka tirsanayd Nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markan ka horeysay la soo xiray maxamed xaaji Aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen dadka qowl number 1 ka ah xataa waqti taas waqti faham Aamina rag fara badan horta xaniya qabato oo markii meesha joogtay wax badan ay halaysan waxa kamid ah yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare تقال محمد marka milyan qof baar oo soo noqoto in hal uu fiirinayo Aamina waxay u tin ku ahayd al-shabaab waxayna dhamaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay Aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkayeen qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi maxamed xaaji ilkaxase waxa uu sheegay in kooxda Aamina dishay oo isagu geeyay goobta ayna hagayso qof dumar oo is yaqaaneen mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyay sida uu sheegay ugaaska oo qofka sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo Cabdullaahi Kuusane oo isagana sawirkiisa aad aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilayna ay watay Maryan oo ahaa Cabdullaahi Kuusane hooyadiis isla markaana xaaska uu qaba Salmaan oo kamid ah shabakadan la hayo kiiska Aamina wuxuu u dhacay san u sheegay hal shay baan ku diray
وحقيق اللي صوحي أو لا عيالك ود جيمش مالن عبد الله كوني كري أنت إن أنا وياس يجروب كيسة عن وضعي أو عن جيمش عن بنانك كيسة دواش صوقته وجودها نوكجر كوسنا أو كوسنا مركزنا وتويدي سوعي نايا أو شيء سارنت وحنا شكي يجرن آمن قفك كلاس كله فدي إنه قد بهذا كان حتى بناك وجوم كده هنا أركض بركة كاش فصل كلا لفدي نكته فهمتي وحنا سي قياس على قفك فصل كله فدي إنه صاق عيسو استاجي وبناك هو صابعي وكوسنا له هذا كده بنقول هابتي يعني لما تقول بحنا كده بنوش ساسي ولا هذا دمر وها كوسنا على صح هذا شيء كده بنوصل على كده بنقول يصدق على المرة السوق عليه كوسنا وحوك استاجب الباب لا وضع هو شيء قش يعني لا بقى قش يقول يصدق يكوس على الكاس يمكن حفاهم مع تاني كلام بتاعنا هتفرق أردن سمي أردن كوسنا وفير سنة halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay Aamina lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay Aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad Aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kulliyadda shareecada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin Maxamed Xaaji Ilka Xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyay ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgallada noocaasa ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirka waa balaarta sariirka yani waa baabay hadaadhe fashilkii suceebka iyo waxa ku dhacay fashil fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka jaakibantooda la badiyay inuu waxay jirto mar badi ex control aan gaarin xaniyan lahayn waqti hadda ex control dhaafsatay xataa galmudugna kan wuxuu ku sameeyo masaalan hada مثلا istaraatiijiyadda amni ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro boolis ah u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay samaysay wax kastoo ay ku xaqiijinayso ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisanimo ee gaadiidka lagu horjarayo gaadiidka sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dawladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadeynin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin Maxamed Xaaji Ilka Xase isagoo macallin jaamacadeeda ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo iska jirta mucjiso aan saxo marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku disho maalin kala daymaad caadi qalbiga wax markana waa la kala yaacay oo aqaanani isla maalinka birmaanka meesha imaan shaaq cabeen dadka ka shaqeynaa mar dilka dadka kaliya kuma ekayn Maxamed waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisanimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaar ah inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriyo al-shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idin dhigaya ee dhamaystira taasoo uu la jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhamaystirayaan marka dhaanayaan wadan iyo inoo laba wiil cusub la soo wadaa aad u fiican oo ladan ka soo jekimay bal shaqo ma bari kartaan wadaas wiil hada qof darwala oo sameeyo shaqo ma bari kartaan ha waan loo keenaa marka dadka marka dad
tababar ahaan dhammaystiran waa laakiin baraatikada male theory ahaan way dhammaystiran yihiin waa la baraa marka shaqada ka markaysana mas'uuliyadan keena anaga wadan shaqada haye waladan baraa okay ana garaada igu xig oo ku dhigan in ku dhammaystiran meesha ka dhaha furo كنترول كحل حاجة استاجيس هذا واقع سأقول هاي بس والله بلا وينك ما أنا كلامات خف كلامك أنا ما أنا استعد مرك أكتب أنا مسكون في الانتي مرك الله مرك الله فتاتم مرك ما يعن كل شغلنا رجس أنا عبد الله من كل شغلنا مين يغنى لك dadka uu tababarka noocaasa siiyey waxaa ka mid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaasoo hortiisa dilal ku sameeyay marka waxaa imaadiniho in la baxaa la rabaa oo maxaa la jiray dooro la aado waxaan dhahay ana markii ilaa hadda ana in lambar leen kala marayna koode waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala marayna ani ziyaado kale isoo gelinaan dhahay mar hadaan ka baxo inoo dadka ayagu macnaha horta waxay ku leeyihiin meeshaas aadade tahriiba aadade inta ka baxaade wax saas camal sheeg laakiin anna waan dareensanahay adina waxaan isleeyahay maxaa la jiray qof waa warkaaga waa la fahmi doonaa مش سيستم واقع قلدم دونا وارد حقي ساعات ومش سكة لهنا قطبه وحالي لقينا سبب بحثهم عن يجري ماشي إمادته عشرة قاعدة كذا مهمة أنا أنا حمر كم بحكره حبيبنا كم بحكر مالنا كم بحكره حمر بحديث وحنا ماشي سديت محل اسمه شيء والنال هين ماشي كم سوق هذا وحكلوا ماشي تدمان زيادة شقة قبشة هذا اللي ما هنا قبشة هذا marka waxa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiyo 10 oo ruux fahansiin iyo wax kale uma baahnaan ahayn ma fahantay ana waa inaan hadda maanta 10 ay akhrisida wax iga dhaadhicisay ani hadda uma baahnaan ahay marka hadii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaana aysan naga noqonayna بس وحولها مرك كل واسكون نقدين كل رجاس وحاول رجع امتحان واسكون لابتين مرك وحالا يورتنينك ولاga wareysana barnaamijyada ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay anana aan ogeyn laakiin si ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen aan hijir in ay shay noqoto gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la hijirinayo shaqada iyo qaabkeeda iyo nooc loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiyaa سيل إفانسينا نكا سامعنا محل هجري صاحبك راعيسا سو مراتك أهانة تفهمي عربية koox la socota oo hogaaminaya Maxamed Xaajiil Kaxase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka agaarka siliga Ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhamaantood u dhixi waayeen basooladii ay wateen waa kuwan kooxdii basooladu u dhixi waayeen oo mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhaxay horta intaan aqaano horta waxayna hayeen ilkaas Arab Ahmed iyo aniga Yaxya laakiin way Ismaaciil saxda markii oo islaantan inta la aadan ka hor Ahmed ayaan isku xiray ilkaas wuxuu dhahay waxa la shaqeynaysaa ninkan kula shaqeynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo irgada wax soo doorato iyo waa liisha nolol sharaxay irgada soo dooratay islaantaas ayaan ina aadina rabnaa waayahay ayaa dhahay Ahmed ayaa kula jiro dhahay Ahmed iyo aniga waa soo aadni marka hore ilkaas ayaa ibar islaanta jaada yagada irgada soo doorato ii sheeg Ahmed isna wuu bar laakiin aniga markii dambe Ahmed ayaa israacin waa soo waaneenay waa iimaaneen marna way maqnid ida maqnid oo la way baaqati marna marka aadna oo ida inta markii la helo kadib waa la waanay maalinka dambeysii ugu dambeysii waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dukay kadib meeshii marka tagnay oo irtijaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyo rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii كتبين كدب أنا جوا كسر تجنا وكسر عرنا ماشي حيوقع يطبق غير كأني شو كسر كلا عرني كدبني أنا جو عرينا أيا عيد من دولة لحد وقل ورتوقع مدوان كسر قاعدين وحن كان عبر كسيليا تلاجارين بعد هيت مش أكو تجي إيجادين هذه 8 دقيقة مسؤول يجن أسوق يلا يسوق الكاسة نيو واكس بعشة كهلاوي نيو كيجارو هذا مش هكتجن دتها قادن كورس ده شقة قادن هيبقى يعني هاي من دي كرتيت وأسوق هذا أسوق كنترول كانوا بصور على المرك كنترول كاسكرت مستحق أقصد عنه
niyo aan horta systemka qabasho ahaan marka aan kuu sheego oo haddii meel kasta la isla aado mise meel kasta la soo maro horta wax aan karsamaynin waxay ahayd anagoo shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas u imaaday ay tahay meeshan cakaara taqaane ay tahay ya meeshan lagu qaban doonana in kulley ay tahay madiina salkeeda ay tahay oosan wixii oo qabashadeena iyo intaasna aysan u dhaxaynin wax aan 10 daqiiqo dhameen hataa haddii aan fiirino 3 daqiiqo camal ah soo cararayna oo orod fiican ah marka meesha imaana bajaajkaas 7 daqiiqana ma aanan saarnayn si aan hadda aan qiyaasay markii been banaanka laga tago ujeedaa marka umuum isku dar intaas ay baash hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Baarliin ayaa isaga xarartay dalka iyadoo ka tagtay carruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacada ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa rag ay imaadeen hubaysan alxamdulilah rabbil caalamiin waan ka noolahay halka madaxa bay xabadiga qabteen bistoolada dib baan laga sheegi doonaa makaaruf halkaas ay qabteen xabadii makaarufka bistooladii makaarufkeedu way dhici weysay uu ila soo wareegay intuu ay qabtay xukunka ilaahay way dhici weysay بعدين كي لبات مركو نكي كوباد لبا حبود وقبطي نكي لبات وصوريغي كي كلا إمادي ولبات الكاو إيغا قبطي كي لدا بسطولة تسوح لياتيتين حبدي ويدعي ويسي قدر تربي وليغا الصوريغي الكالاب تاو إيغا قبطي ويسي سياني قبطي وان نحير شيء رجينا إلا ما أبني جعنت وقلنا مركز بكنترول كل عام أنا كمركز ماشى سيقظة كنت ضايق مغنيت كبعديها جعنت ماشي لاقى قبطي مركز جعنت ماشي لاقى قبطي كل عدكي جاتم به تركب عليك دقيقين ما أقانو مركز حتى أنا عيد تركب كدقيقين شرع الإسلام كموين هو الصوماليات وكنت هبين أم الأخ أيامها هي الكيجين لكم الشيء هذا وحن بيلاي ومركز عن قف وبح عن عنها عن وبحي وبين يجسوجاي هو يدي وأيلا ولا عليه الصبور وحبه سنين هي الكيج يريسكا ومتك ويرقو مركز ومش عن كل جرد كنت هبين أيام الأخ tasbanidin sheegaya sharciga islaamka kama weyni nagarta iyo dilka dadka waxa soo diyaariyay koox ay u yaqaanaan istiqbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungaar balse Salmaan ugu dambeyntii waxa uu qiraal ka hor sameeyay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya halkaas oo uu ka sheegay doorkiisa al-shabaabnimo أنا واكمدها لكن تقييد أهان كما مدهن قصب أوجيسان أوركان أولره أنا صاحب أنا محمد حاج لي وقصبي إن أنا كبير شباب أنا برنامج كاسلو هذا وحن وابسنا أو كليا العاقاس أو كليا أكون كي بس الاستعمال الجيران وحد شقة أو قبض المجرته هاشم waxa uu ka mid yahay shabakada Maxamed Xaaji la shaqeynayay waxa uu qaabilsanaa hagida iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagi ugu kalsoonida badnaa Xaaji waliba asaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab marka ninkaasna saaxiibka waa taqaana horan oo u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiib aan nahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa in kasto saaxiibkayga aad tahay ina arintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go'aan ka gaartid isla markii aniga go'aan degdeg ma gaarin waxaan lahayd kulli aniga hadda nin iska shaqeystaan xaasna waa qabaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidiyaan ka shaqeeyaa marka waxaan lahayd hawaan waa laga fiican wax hadda aniga arin qidda askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kule nin xaas qoon waa kule dib ma loo dhaay laakiin qaabka u malaysa ma qaab kale nooc kale loo shaqeeyaa jirto oo adoo hooshaada wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican
ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan ku sheega aday ku qancayso kulay ana horta waa kasoo fikiraa si wax u jira isha marka qaabku ii sheegay qaabka amigu ii sheegay magaalka qaabka loo shaqeynayo hoolasha la qabanayo qaab loo qabanayo waxyaalahaas ii sheegay marka faadumo oo magaceeda afgarashada yahay korneelad faadumo ama cosaba waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shirqoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan hubkan ii qaada yahay ma ku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo xilliga xalfadda ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku ilaa saas hoo shaqada ay ila wadadaan rabaa waxaas la ii soo sheeg bis aniga wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood sukaansi ahaan ula macaamili jirtay markuu ii soo dhigay sawirradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madaniga ka gooni ahay sawirkaas oo mootoolo ahay ay jiray asna waa u dhigay asiga mootadiisaan u dhigay taargadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laisku moogyahay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa faadumo waxa ay ashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uuru leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay isaga wuxuu dhahay hadaad uur leedahay inay bolihu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay bolihu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa iflagaadan arkaan dhahay marka wuxuu yiri maalo ima wiri xaar ma ku iimaanayni waa ka xanaaqay maalinkaas xaar ku iimaanayni marka binku soo wacay wuxuu dhahay walaalay ma kugu la kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo wixii oo dambiyoon galnay waxaan ku yiraahdaa iska kiyafi xaaladan inay meesheeda ka sii socota rajaynayna oo reerka aan ka doono oo waxaan ku raxmatadan ku geystan aan ka tatiro marka imo sawiradiisa markaas waa la soo diray taleefankii ku jiray markuu isoo wacay amiirka u sheegay xaalisaas ay jirto wiilkaas maanta aad rabaan socday xafidiis socodaan hayo waa arkayna warjiro qarab ku ballan waa arkayna isoo doonay ayagana sidii kor u arkeen xaafadda aan ugu soo sheekaysan waxaan dhawraal warkii hore la wadahay kala day waa ka soo laabtay gurigan u soo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ku ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqadan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala haashim oo ka mid ah qaybta sahanka ee kooxda al-shabaab mar hadda ka hor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shakhsigii u dhexeeyey maxamed aabiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabba xaaji una sheegi jiray in wax kasta oo dhaqaalaha u baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji aabiis waxaan dhihi jiray xaalad intay maray meel bis waxaan u sheegi jiray inay ardaydii ama dhallinyartii ururka goolmarar dhallinyarta inay wax walba ay garab taagan hadii loo baado qarash hadii loo baado wax walba ana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag hadii loo baado laga helayo dadka caawinayo aan qarinayo intaas u sheegi jiray laakiin lacag isku day jiray inuu oday hadii loo baahdo in soo dhiyo lacag lagu furdaaminayo business laakiin aabbaha dhalay maxamed xaaji oo aan la kulmay waxa uu diiday in ninkan ay wax wada hadal ah galeen isaguna uu iskiis ugu dadaalay sii daynta wiilkiisa wiilka hadda ka hor waa iska jirtay
ilmaha dala xiray yani wiil raaf uu galay raaf waa iska jiray marka raaf baa la galaa xermo oo raaf baa la galaa sida caadiga ah raafta waxaa jira wax uu gal la yidhaahdo lagu soo qabto iyo wax oo macnaha dhacdo fal of sameeyey ama oo dad sameeyey lagu tumay oo magaalo la geeyey la duubaayo iyo waxaa jiro howlgal guud oo la socdo howlgal guud lagu socdo meelahaas lagu xiray marka dambi maana waxna waa lagu waayay وأنا الدم اللي هنا هواكم هذا الدم اللي هنا يعني أليسي واحد كذا أليسي من جبت عيد كاك حتى زمان كاسيدتي maxamed xaaji waxa uu qabaa in horjoogayaashooda aysan ogoleen carruurtoodu inay galaan dhibka iyagu ku jiraan taasna ay tahay tuun ay qabaan balse aysan kor u sheegi karin sababo la xiriira xabsi ay qabaan wala isweydiina ilmahoodii aaw ilmahoodii waa laga dheereeyaa maxaa yeelay ayagaa lagu korraadina maraykana canuga ninka ku korraadin karo nacsu way fikiraan xaqiiqda la kasaas maahan xaqiiqda waxaa tan waa canugiisa waa ku kulaanaya tusaale ahaan cali jabal ciyaarkiisa dhan way u kala maqan yihiin marka laga rabo wiilkiisa lala duqeynayo al-shabaab waxay maxamed xaaji ilka xase ku dareen haweeney uu ka dhintay ninkii isku qarxiyay hotel ambassador oo lagu magacaabo qaali cabdirasaaq taasoo hooyadeedna ay ku jirto xabsiga dhexe loona xukumay al-shabaabnimo iyo hubhayn qaybta koowaad ee barnaamijkeena gungaar waa naga intaa qaybta labaad oo aan uga hadlayno siday wax u dhagraan kooxda al-shabaab kala soco habeen dambe isla 8 fiidnimo telefishinka qaranka